meel kastaaba kelimadeeday leedahay laakiin shalay galab bay meeshaan ku qaaceen in la nadiifiyo qasab waa marka runtii dalka waa dalkaas hadda halkaas u jihaystay laakiin nimanka saaxiibadeena qaar bay 2012 u joogtaa qaar bay 1990 u joogtaa qaar bay 2092 u joogtaa waa kuwa hubkii ku fakaraya ninba meel bay u joogtaa lama socdaanba caalamka anigu waxaan qabaa in looga yeero munaasabadaha in inta looga yeero bardalku meesha u jihaystay iyo dadku meesha ka hadlayaan inay horta bal soo istaagaan oo arkaan dalkay ka hadlayaan ma la socdaan airportku ka soo degayaa guri jasiiro ku dhagan buu degaa halkaan uu shir jaraa'id ku qabtaa halkaan uu ka laabtaa qof uu arka male dhowr qof uu yeeraa asagu qofku rabo ii dhahay uu yidhaa xitaa dadka shacabka guri baa layga barbaris waa lay barakaciyey waa lay afar kalimo weeye waxooda dhan afar kalimo ku wareegayeen afartii sano la soo dhaafay mar dastuurka haysteen marna ciidamadii baa burburay lahaayeen marna waxay yidhaahdeen dhul baa la barakicinaya marna waa doorasho afartaas mawduuc nimankaas waxaan ahayn ayuu ka hadlay haddaa aragtaan anaa ii yeeraysaa male nin baa marka islaantiisi Soomaaliya waxaa la yidhi islaantiisi iyo soo wareertay soo jah wareertay salaamahana in lagu hadal qabsado ma raggan jecel lahaa inaan ku hadal qabsado laakiin waa sharfay waa gabdho sharfan waay laakiin mid waa ka wareeri kartaa islaantiisi xoogaa soo jah wareertay ayaa salaad xiratay التحيات والمباركات لله والصلوات والطيبات أيضا تاج وايا بنك ورما دقة هذا وحن مغلي تحيات كان إسلام تبص كيف هذا جلس مركي كاكا الصلاة دي دميس أيوه حير وحنليا بنا هبلا يل وحد مركات بريستيد التحيات كاد آخرين دوت قارتاد التحيات كآخرين دوت ضريا ما دام استاج التحيات كي كوشكت فديga waxaad ku akhrin doontid baan la yaabana nimanka odayaasha marka terminology iyo kalimaadkii waa ka soo dhamaadeen ilaa afar xabay ku celcelinayaan dadkina waa ka daalay waa la xigtay hadda shirkad jiraayadu kasta ilmaha oo meediyaha markay u yimaadaan waxay sheegayaan waa yaqaanaan laba meel uga ma leexdaan shalay waa ugu dareen marka shalay halkaan ay soo wada safteen line bay galaan sida askartii xitaa dadka sidaan oo kale ay u fariistaan mid ma soo istaagaan halkaan line la gelinaya sababtoo taa iskuma kalsoona kee ka hormaraya kee microphone lagu hormarsiinaya waxa soo dhan line-kaas marka waxa laga yaabaa soo socodkaas yarka waxay u arkayaan in ba maaragtay waqti badan lumayo hebel in la liiday ba haduu xagga fariisto microphone ku soo boodaya waa qufacaya bas way waa tagaya shalay marka ya ana waa isku dhageeyeen waa dad isku wada dhagan hebel iyo hebel ka fakan way laniga duwal kan fariis masuul ah waa iska baxay niman ishaas marka inay meesha wada taagayeen ku wada shaqeysto shalay marka waxa ugu darnayd mar raba waqtiga inaan dheereeyo markay ku dhawaaqeen afarta bish ay yiraahdeen banaanbax hal isugu soo baxo qofku muusan ka daalin jugta haddii halkaan islaam intay soo istaajiyeen ay tiri cagafa inta soo baxay afkayga galo ilkiiga jajabiyay afkayga intuu ku tuntay ayaan hore hadda 10kii bisha ayay banaanbax qabteen banaanbax waa la arkay waa lagu maadaystay hilibka ariga hilibka geela dhalinyarada xamar ma filinkii hilibka ariga iyo kaliya inagu celinayaan afarta bish dad waa waayeen afartoodii waa microphone qaatay hilibka ariga kaliya la naadi sheekhiina kaarani halkaas inta tagay asagiina dad waa soo bixin waay kaala wari adiga meeqa sanad dhima weyd ciyaalka waa aragteen gabar baa wiil dhashay sanad ku xigtana wiil kale dhashay sanad ku xigtana wiil baa dhashay gabar baa dhashay
meeqa sanadkii koowaad maxaa iga halaabay maana dhintay leedahay waa lagu maadaysta asagina nimankii marka hadda joog dhalinyaradii muqdisho runtii waa mahadsan yihiin war nimankan joog ha loo bedelay ayagoo dhanba ha lagu maadsado kii marka waxay yidhaahdeen 4 bisha ayaan banaabaxa qabanaynaa ilaa soconaya isbuuc kasta qabanaya dadka Soomaaliyeedna way ka daaleen nimankaas sababtoo ay tahay waa niman daatadoodu dhacsan tahay update ma sida hadda sheegeen hal la update gareeyo hay'adaha daatooyinka qaabilsan maskaxdooda hal la update gareeyo dalku meeshuu marayo hal laga maaragtay hal soo update gareeyo cidna marka waxaan ugu yeeraynaa shacabka Soomaaliyeed sidaad maalinkii dhaweyta u hoojiseen oo kale nimankaas u hoojiyo sidaad uga dhigteen dismoral oo ay ku soo laabteen ilaahu yaana bixiyay gaareen ilaahu yaana bixiyay qaar guri shacab baa hareeriyay odayaal baa u tagay marka tan kale oo shalay dheeriga ahayd waxay ahayd in halkaan intuu soo istaago ninkii wadaadka ahaa oo qubxi daldalo wiil gaar ahaan ciidanka xoog dalka uu yiraahdo saraakiil laba sarkaal oo laba taliye guuta ayaa dhimatay dagaal khaldan bay ku dhinteen dagaalkii al-shabaabku ku soo qaadeen baydhabo saraakiishii inta damacday dadkaas iyo dalkaas inay difaacdo ku shahiiday inuu ku maadaysto halkaan oo yiraahdo wax qaldan bay ku dhinteen runtii ayaan darro weyn waay meel xun bayna ka gashay markuu siyaasadii ka hadlayo waa loo shaqfal daloolin karaa laakiin markuu gaaray inuu ku maadaysto ciidankeennii shuhadadeennii u dhimanaysay dalka ma shabaab buu rabaa inay baydhabo qabsadaan oo shabaab buu difaacaya muxuu difaacayaa oo ka hadlaya nin kale wuxuu yiri ciidamada xanan buuro gobolada dhexe galgaduud ku xareysan kuwana turki Soomaali ku xareysan yihiin annagana loo soo wataa sanad ka hor waxay lahaayeen ciidankii waa burburay haddana ciidankii dhismihiisii iyo force generationkii cusbaayo ciidan ku biirayana ninka xanan buuro ciidanka ku xareysan ee militariga raba inuu yiraahdo halkaan ay ugu soo weerarayaan war adeer horaa lagu soo weeraro 10 jeer lagu soo weeraro dhibaato waa lagu geystay xasan sheekh haduu ku weeraraya saldhigii hurdhigley baa ugu tagta adoo hubaysan maalinkaas ay madaxan ugu dhufto hadiiba maaragtayba wax lagu qabanayo waayo adoo falgaranse ku jira xabadaad waxaad ku riday saldhigii iyo ciidankii hal xab lagu maridin madaxweynaha New York baa wada joognay war wadaha loo furo nimankaas ay ku baxaan buu waa qaldameen maanta halkaan wuxuu la soo taagan yahay waa la dilayaa nimankaas marka waxay rabaan inay justification ku sameystaan waxay tahay inay rabaan inay maleeshiyada adeegsadaan ay leeyihiin waan ku difaacaya anaga isku difaacayna xasan sheekh madaxweynaha soo weeraraya dawladda soo weeraraysa maleeshiyada aan isku difaacno reeraheena ayaan ilaalsanayna haddaan u sheegaynaa wax idin soo weeraraya ma jiraan ciidanka xoogga dalka wallahi na mas'uuliyad wala booliis haddii la soo weerarayo afxumadiina mar hore la qaban lahaa haddii la idin soo weerarayo dhaqan xumadiina laga hortagi lahaa cid idin soo weerarayso idin soo socoto ma jirto laakiin maleeshiyad maalinka qaadatid gacmaha laga jibinayo maleeshiyad haddaad isku daydid inaad adeegsatid oo xaafadaha aad tiraahid reer hebelahay oo aad noo celisay sagaashamaadkii iyo warlordskii iyo qabqablayaashii gacmaha la iska jibinaya adaa u yeeranaysa marka albaabka waxaad garaacaysaa albaabka dawladda soo garaacaysa albaabka ciidanka adaa garaacaysa maalinkaad maleeshiyad isku daydid inaad adeegsatid hadda qaabkii u socdaana ah waxaan ogol lahay wada hadal baa dawladdu furtay runtii 5 jeer madaxtooyada lagu kulmay mar kale xafiis dawladdu leedahay waxa la ku yaala wiigi hore lagu kulmay wada hadalkaas waa furan yahay nimankaas odayaasha waa la soo dhaweynayaa doorasho qof iyo cod la gaarayaan wadaadka wuxuu leeyahay xamar wixii ka dhacay baadil bay ahayd wixii baydhabo doorashadii ka dhacdana baadil bay ahayd buu shalay leeyahay halkaa ku leeyahay maxaa saxan 135 oday baa ugu dambeysay 135 oday miyuu rabaa inuu dalka ku haayo ilaan hadda boqolaal kun oo qof ka qayb gashay xabarna sidoo kale xisbiyaa ku tartamay baashaas marka nimankaas xujadu waa ka hadlaysan tahay waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gunaanado shalay wixii kale oo yiraahdeen waxay ahayd madaxweynihii hore ayaan leenahay hadda wixii ka dambeeyay siciidana baa yiri dhaxawriya maalin weey waad aragtaa Soomaa
hadda ka hor waxaan idiin sheegayaa weli waxaad leedihiin madaxweynihii hore ood leedihiin madaxweynihii hore waa baxay markuu puntland u safray halkaana shala soo safteen madaxweynihii hore annaguna waxaan leenahay mucaaradkii hore mucaarad cusub baan u baahannahay ilaa maandeed cusub aa la qaatee ayaguna waa mucaaradkii hore madaxweynihii hore intaas agtaalla mucaaradkii hore agtaalla qaar xildhibaanaha ku jira madaxweynaha waxay yidhaahdeen maandeedka ka dhacay waxaan rabnaa bishaan 20 bay maraysaa maantee inay warqad inta qoraan canshuurta yaan la bixin nin baa ku dhawaaqay halkaan waxay intaas dheer inay World Bank iyo dowladaha waaweyn oo dhan ragga halkaan jooga ay xogta Soomaaliya laga hadlayay maanta in la ilaaliyo inay warqado u qoreen ay leeyihiin Soomaaliya kaalmada laga joojiyo adduunka u siiyo waa la hayaa 4 nin oo kamid ah ragga waaweyn oo meeshaan soo istaaga xogtii Soomaaliya qarannimadii iyo Xasan Sheekh baa isaga darsoontay war waxa la caawinayaa hay'adaha dawladda waxa la caawinayaa ciidanka waxa la caawinayaa cid kasta wuxuu leeyahay hala joojiyo shalay waxay leeyihiin cafiskii hala joojiyo warqaday qoreen isla ayaga laftirkood waxay qoreen warqado cunaqabateynta hubka markii la ka qaaday warqaday qoreen ay leeyihiin hubka waa isku dileynaa hala joojiyo dawladda Soomaaliya waxba loo qoro nimankaas marka noocaasa dadka Soomaaliyeed horumarkoodii iyo dawladihii adduunka garab taagnaa nimanka warqadaha u qoray oo leh Soomaaliya hal go'doomiyo nimankaas xukun uma socdaan waa niman xameetiga Suudaan oo kala waa niman dawlado kale ay soo adeegsadeen intooda badan oo raba dalkan in la isku qamarshiido dawladnimadiisu baaba'do jabhadiya maleeshiyaad ay ka soo baxaan Israa'iil qayb qaadato qayb wadamo kala qaataan oo darisa lagu kala baxay rabaan niman marka agentisa oo aan horumarka ay isaga qaldan tahay Soomaaliya waxa lagu curiyaaminayo dawlad ahaan iyo xukun iyo regime jooga markaas wixii lagu mucaaradayo niman ay isaga qaldan tahay way nimankaas odayaasha warkooda waxaan aaminsanahay wax dhig jalaq loo siin waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado arrinta wada hadalkuna wuu soconayaa ciidankeenu runtii guulo waaweyn bay xaqiijiyeen oo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay maaragtay ay bogaadiyeen soo dhaweeyeen waan u hambalyeynaa yaa laga amar qaadan bay yiraahdeen dawladda war dawladda Soomaaliya ciidanka raashinkiisa iyo maaragtay iyo mushaarkiisa iyo baabuurtiisa iyo gaadiidkiisa iyo qalabkiisa iyo rasaastiisa dawladda Soomaaliya mid hayso ninka halka inta soo istaagay laga amar qaadan wuxuu ka taliyay ciidan konta kuna foodo inta noqdaan in jidadka la xirto ganacsigan hadda aan ka hadlayno la burburiyo oo jidad ummadda oo dhan kharibato ayuu ka taliyay niman غير مسؤولين weeyaan shacabka Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa kuwaas yaan waxba laga dhigaysan nin kamida oo rajo kale kursiga inuu qaato ma jiro nin u qalmaana kuma dhex jiro waa nimankaas odayaasha agentiska dalkoodii la diray birri ciidanku rabay inuu xukumo ayuu leeyahay maanta dawladda laga amar qaaday birri saraakiishii uu rabay inuu dagaal u diro ayuu leeyahay dariiq qaldan bay ku dhimanayaan arrintaas marka runtii arrin laga xumaado weeye nimankaas waa soo gabagaboobeen annagaana soo gabagabeynayna afaan ku soo gabagabeynayna ayagu afay meeshaan ku hayaan gacanna ma qaadi karaan horena waa u sheegnay war hub ma soo qaadan karta hubna cid u qaadaysa hadda ma jirto maalmo ay habboonayd hub in la qaato oo qofku madluum yahay oo gurigiisa lagu soo weeraray oo meelo kale si lagu noqday maalmahaas oo madaxweynayaasha loo diidayay inay safraan oo diyaaradoodii hawada ku jirta la dhahay garoonka Beledweyne iyo ka degin maalmihii la rabay in xitaa qofku soo istaago thumma wallahi thumma wallahi filinka aha bas wiir hub ma qaadan kadibna garoonku ka dhoof laakiin maanta wuxuu yahay Xasan Sheekh wuxuu leeyahay waa isku taagaya hub baan u qaadanaya arrintaas marka arrin soconaysa maahan waana runtii shacabka Soomaaliyeedna baraarugooda waa ku baraarujinayna waa baraarugooda waa ka hambalyeynayna aad iyo aad u mahadsantiin